fayoobi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mid ka mid ah asxaabta nagu taxan page-kan ayaa su-aalna weydiinaya oo ah cudurka la yiraahdo thyroid iyo saameyn inuu u leeyahay indhaha iyo in kale. aada u mahadsantahay su-aashaas aa weydiisay Mustafa, waa su-aal aada u fiican. thyroid qofka aan garanayn iyo qof kaleba halkan waxaa ku yaalo dhuunta ah qanjir sida u sameysan balanbaalistoo kale, taas oo u qaabilsan jirkeena in shaqooyin badan oo aan lasoo koobi karin, taas oo ay sameynayso hormoniska marka ay bedelayso jirka ku saabsan. marka waxaa dhici karto in hormoniskan oo soo saarayo inay kor u kacdo, sidoo kale inay hoosna u dhacdo, labadana uma fiicno jirka. marka labadaas xaaladood ee jirka uu ku dhici karo ayaa inta badan dadka qaban way fahansan yihiin xaaladan, oo ma ahan wax jirkooda marka iska bedelayo wax lasoo koobi karo. taas oo qofka haddii ay kor u kacdo kale xaaladan noqdo muuqaal ahaan oo kale qof allaarte ah, qof caate ah oo cunto walba cuna xataa aan ku cayileen, sidoo kale indhaha banaanka yaalo, sidoo kale heer kulkiisu kala fiicneen oo mar walba kuleel ku jiro. haddii hoos u dhacane uu noqon karo qof iska buuran, wax yar hadduu cuno iska buuranayo, sidoo kale xagga mataqaanaa dhalmadoo kale aada dhib ugu qabo. marka cudurkan ma ahan cudur fiican, laakiin maanta muuqaalkan waxaan kaga hadlayna waxay tahay xiriirka uu la leeyahay indhaha, maadaama sidaa magacaabo qofka indhaha banaanka usoo baxay oo kamid tahay mid kamid ah calaamadaha. xaaladan dhibaato noocee ah ayuu u gaarsiin karaa isheena, sidoo kale maxaa xal ah oo lagu daaweyn karaa. indhaha waxyaabaha ku sameynaya waxay tahay antibodies waxa la yidhaahdo uu jirka uu soo deynayo, taasoo unugyada markaa jirka inuu ka difaaco la rabay cudurada, in uu soo weerarayo murqaha ku hareereysan indhaheena, kadib inuu cadaadis saarayo murqaha ama lafaha ku wareegsan isheena. cadaadis markii uu saarana isha markaa waxay sameyn karta waxay tahay inay banaanka usoo baxdo. waa calaamada koowaad oo qofka uu isku arkayo. markuu cadaadiskaas ay saarto isha oo isha banaanka usoo bax, dhibaato noocee ah ayuu qofka ishiisa qabi kartaa. sida iska cadbo isha markii cadaadis geesaha laga saaro ee banaanka usoo baxdo, nidaamkii oo markaa isha ku shaqeynayay ayaa waa isbedel ku imaanayo. midda koowaad oo ah indhaheena marka hadeertaan caadi ahaan oo qofka noo fiirinayo waxaad moodaa inuu gudaha ku jiro, baararka indhaheena ay ku daboolan yihiin. qofka marka xaaladan ay soo weerarto oo indhihii banaanka usoo baxo, waxaa dhacaya marka waxa la yidhaahdo proptosis, oo ah in indhihii meesha caddaa oo gudaha ku jiray inay banaanka usoo baxdo. taasna qofka waxay keenaysaa ilinta markaa oo qofka in dhibaato ku imaato. marka qofka waxyaabahu isku arkaya waxay tahay indhaha markuu la leexinayo kale inuu xanuun ka dareemo, sidoo kale waxyaabaha isku arkaya waxay tahay qofka in ilmo badan ka imaato oo aada u ilmeeyo. sidoo kale xaaladan waxyaabaha kale qofka u nugul yahay waxay tahay oo isku arki karo in uu laba wax u arko oo la yiraahdo diplopia. waxyaabaha kale oo wehelinayo xaaladan oo qofku isku arkayo waxay tahay in aragga cawaafka galo. sidoo kale maadaama isha banaanka usoo baxday, xaalad wuxuu u nugul yahay dry eye ama indhaha inay qallo, taas oona keenayso in inta si fiican ay indhihiisa u gaareen, xaaladaas oo loo yaqaano dry eye. daaweynteeda marka qofka ama qof dhakhtarka indhaha wuxuu kula tacaali karaa xaaladan oo ah markii laga soo tago daawooyinka uu qofka uu qaadanayo oo dhakhtar ku shaqo leh uu ku daaweyn doono. markii laga soo tago waxaa ku gudboon qofka inuu dhakhtar indha la xiriiro, wixii uu ku caawi karo inuu ku caawiyo, taas oo noqonayso haddii qofka uu qabo kale indha qaleel oo keeni karta xaaladan, inuu markaas siiyo goojooyin hadafkeeduna ay tahay qoyaanka markaa gaari waayo isha qaleelka markaa inuu ka caawiso. goojooyinkaas oo markaa loo yaqaano artificial tearska. taas marka laga soo gudbo indhaha markuu cadaadis uu ku sameynayo kale xaaladan, cadaadiskaasna waxay sameyn kartaa neerfaha gadaal oo inay cadaadis ku abuurto. marka haddii xaaladan la controli waayo oo cadaadiska ay kusii badato, qaliin markaa waxaa jiri doona hareeraha lafaha ku hareereysan murqaha indhaha cadaadiska oo ku jira xataa in qaar laga siibo, qaliin ahaan loogu siibo si cadaadiskaas oo indhaha uu ku hayo loo yareeyo. waxyaabaha kale oo lagu saacidi karo xaaladan waxay tahay haddii uu qofku uu dareemayo laba kale wax walba laba u arkayo, in la siiyo eye patch waxa la yidhaahdo oo ah hal il in laga daboolo kale, taas oo markaa ka saacidaysa labada wuxuu arkaa inay ka yaraato. sidoo kale muraayado in la siiyo,
kaas oo raacsan waxa la yidhaahdo prism. waxyaabahaasna waxay ka saacidayaan marka qofka waxyaabaha uu dareemayo nolol maalmeedkiisa inay u saxdo. intaasoo dhan waxay ahaayeen calaamadaha iyo daawada markaa loola tacaali karo qofka qabo xaaladan. intaas ayaana muuqaalkeena kusoo gabaynaa. su-aalooyin kale oo la xiriiro caafimaadka indhaha haddii aad qabtiin qaybta commenti nagula wadaaga. waxaa inoo balnaa muuqaalka xigo. waxaan idiin rajeeyaa caafimaad iyo indho fayow.